عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. On the authority of Abu Muhammad Abdullah bin Imar bin al-Aaz, may Allah be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, none of you, truly, believes until his desires are subservient to that which I have brought. Imam an-Nawawi says we have related it in Kitab al-Hujjah with a Sahih chain of narrators. waxaa laga wariyey Abu Muhammad Abdullahi bin Amr bin al-Caas eebbe ha ka raali noqdee wuxuuna yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi midkiin run ahaantii ma rumeeyo iimaan ma yeelaniyo ilaa rabitaankiisa ay hoos yimaadaan waxa aan la imid. xadiis wanaagsan oo saxiix ah. waxaan ku soo sheegnay kitaabka al-Xujjah oo silsilad saxiix ah leh.